luqa carabi ah waa in labada khudbaba ay noqdaan luqa carabiya waa in lagu khadbo af soomaali walaa luqo kale laguma akhrin karo labada khudbo لأنه waxaa weeye lam yahbut can rasuuli الlah salى الlahu عalيه wasalam أنahu khaطba bغayri luqa الcarabiya luqa الcarabiya wax aan ahayn weligii nabigu kuma khudbayn salى الlahu عalيه wasalam wakadalika khulafaa'uhu الraashiduun afartii khulafaaء الraashiduun ee nabigu uu yihi ku dayda salى الlahu عalيه wasalam iyaguna luqa الcarabiya un bay ku khudbayn jireen waxaana la og yahay baahiyo inay jirtay mararka qaar يعني wax keenaya luqo kale in dadka loogu khudbeeyo iyadoo jirta ayaa luqadii carabiga lagu adkeysanayay xilligii saxaabada baahida jirtay waxaa ka mid ahaa xilligii khilaafadii sayidina cumar islaamku wuxuu gaaray dhulka faris waa dhulka hadda eeraan loo yaqaano eeraanna luqa alcarabiya kuma hadasho shacabkeedu luqa alcarabiya kuma hadlaan dhulalka marka bilaad ulcajam iyagoo islaamku gaaray ayaa masaajidda ka dhisan waxaa loogu khudbeynayey oo sayidina cumar khilaafadiisii luqa alcarabiya loogu khudbeynayo laakiin lama dhihin waddanka aanu furannay waa waddan faris ah eeraan islaamka gaaray shacabkuna khadiibka khudbadiisa ma fahmayaan marka luqa alfarisiya ha loogu khudbeeyo lama dhihin madaxweynihii xilligaa joogay sayidina cumar ma uusan dhihin marka waa khalad waxaa weeye in af soomaali khudbadii lagu akhriyo weliba wakhtiyadan dambe waxaa yimid khudbadii dad af soomaali ku akhrinaya oo marka dee luqa alcarabiya bصفة caama يعني si guudba dagaala lagula jiray oo gaalada iyo cilmaaniyiinta iyo dagaalay kula jireen luqa alcarabiya in yani laga saaroba yani tacliimta iyo waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskoolaadka iyo waxa dhanba luqa alcarabiya laga saaro oo laga dhigo luqada ugu horeysa caalamka oo dhan luqada ingiriiska laga dhigo gaaladu dagaal uga jiraan adiguna haddaa tiri masaajidii ha lagula dagaalamo luqa alcarabiya ka waran oo khudbadii ha laga dhigo af soomaali dagaalkeed qayb ka mid aad noqotay adiguna dadkii gaalada ay luqa alcarabiya la dagaalamayey ayaad ku saf noqotay gaaladii waxay rabaan luqa alcarabiya inay la dagaalamaan masaajidii la rabay in laga taageero luqa alcarabiya oo dadka lagu booriyo luqa alcarabiya لأnna waa luqatu ahli اljanna waa luqatu اlqur'an waa luqatu khayri khalqi اllah waa luqatu الshariica kuliha shareecadoo dhan luqa alcarabiya ku qorantay dhammaanteed masaajidii la rabay marka dadka in luqa alcarabiya yani lagu booriyo haddii masjidkii lagala dagaalo luqa alcarabiya oo la yidhaha khudbadii yaanaan ku akrin soomaali ha lagu akriyo waxaad qeyb ka tahay marka dagaalka luqa alcarabiya gaalada ay ku hayaan qeyb ka mida ayaad noqonay markaas marka waa arrin khatarteeda leh in luqa alcarabiya dadka la baro la jeclaysiiyo ayaa la rabay mar walbaba